oo la yiraahdo Nimca Joker waxa uu sheegayaa in uu dhalay Nimca Joker haddaba adigu arrinkaasi ma aaminaysid meeshan waxaan ka baafinayaa laba wiil iyo gabar iyo hooyadood horta hooyadood markaan idin leeyahay hooyadan xusaya marka hore sababtoo ah awlaadda lama tilmaamadan hooyada la xusin marka hore waxa ku xigay gabadhan Nairobi joogta oo la yiraahdo Nimca Joker waxa uu sheegayaa in uu dhalay Nimca Joker haddaba adigu arrinkaasi ma aaminaysaa ninkan odaga ah oo aad u jeedaan ayaa sheegaya in uu Nimca Joker dhalay isla markaana isugu uu jiro 60 sano sidaasina gabadhiisa ay ku ahayd Nimca Joker haddaba markii aanu qiimeynay arrinkani waxa uu ekaa karaa mid been ah balse isugu waxa uu sheegayaa in uu yahay mid xaqiiq ah isla markaana isugu uu Nimca Joker sidaasina gabadhiisii ay ku ahayd kuna caasiyowday haddaba maxaad adigu ka aaminsan tahay arrinka noocaas ah ninkani 80% markii aad fiiriso wajigiisa waxaani waa ka serious oo waxaad isleedahay run ayuu sheegayaa balse markii adigu aqligaaga aad isticmaasho oo aad fiiriso waxa aad dareemaysaa wajigiisa iyo sidoo kale da'diisa in aysan islahayn oo da'da uu sheeganayo ay badan tahay isla markaana ninkani uu yahay Nimca Jokerna uusan dhali karin haddaba waxaanu kugula wadaagi doonaa ninkan uu mucjiso soo bandhigaya isla markaana la wareegay Facebook kuna haya waliba Nimca Joker kaliya ma ahan ee waxaan dhalay Sharma Boy taasina waxa ay cadeynaysaa kuna muujinaysaa kuna taabanaysaa in xogaay uu ninkani been sheegayo isla markaana uu been sheegayo sidoo kale waxa uu sheegayaa qabiil hadda ka hor uu sheegtay Sharma Boy inuu isagu yahay sidaasina Sharma Boy uu uga dhumay kuna caasiyoobay haddaba taasi waxa ay u muuqataa been waana rumaysan kartaa ninkan uu hadalkiisa dhameystiran ayaanu kugula wadaagi doonaa halkan balse subscribe sar channelkan Qarsooni Media sidoo kalena gambaleelka u furo waxa ku xigay gabadhan Nairobi joogta oo la yiraahdo Nimca Joker ninkan odaga ah sita koofida isla markaana madow oo meesha sidaasi u fadhiya ayaa sheegaya in uu Nimca Joker iyo Sharma Boy labadaba isku dhalay isla markaana isagu ay ku caasiyoobeen sidaasina ay ugu tunteen qaarkoodna qurbaha ay aadeen oo Nimca Joker ay qurbaha ka aaday Sharma Boyna Soomaaliya oo haba asaga ku dul tumanayo haba meelna oo ugu gudbayo haddaba arrinkaasi markii aan raadinay ama aan salbaarnay oo maskaxdanada isticmaalnay wax been ayuu karaa balse dadka qaar ayaa markii aad commentiyadooda ay ninkan Facebook ugu soo qorayaan aad fiiriso waxa ay muujinayaan murugo oo waxa ay leeyihiin Nimca Joker aabaha maxaad uga tagtay iyo hadallo noocaas ah haddaba ninkan ayaanu wax yar wada jaleecayna sidoo kale waxa uu sheegayaa in ninkani oo isaguna dhalay wiil kale oo lagu magacaabo Facebookerna ah laguna magacaabo Captain Ayub inuu isagu dhalay ayuu sheegayaa oo dhamaantood ay ku caasiyoobeen haddaba adigu maxaad isleedahay ku soo qor commentiga ninkani ma been ayuu sheegayaa mise run ayuu sheegayaa haddaba wax yar aan wada jaleec meeshan waxa ka hadlaya nin odaya oo jira da'da ama sanadka Cimru Qaalib waxa la yiraahdaa sanada 60 iyo wixii dhanka boqolka xaqiisa ka siixda aniga waxaan jiraa 67 sano muuqaalkayga iyo waxa laga yaabaa in istiraadaan ninkan daadiisu isma laha waa haybad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu manaystay iyo waxyaabo gooni oo aan isticmaalo cid ila soo xiriirtana waa u sheegi doonaa meeshan waxaan ka baafinayaa laba wiil iyo gabar iyo hooyadood horta hooyadood markaan idin leeyahay hooyadan xusaya marka hore sababtoo ah awlaadda lama tilmaamadan hooyada la xusin marka hore waxa ay ugu dhaysay dagaalkii lala galay dhiigi cabkiisa Siyaad Barre 1991 magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Halwadaag islaanta waxa la yiraahdaa maama milyuun haddana waxay isticmaashaan u maleynaya qadka dhowr jeer baan araggeeda arkay dhanka dawladaha dibadda ay ku nooshaan anna waxaan joogaa bariga mudug magacayga waxa la Cabdi Cismaan wiilkii koobaad ay ku curataa wuxuu ahaa wiilkan hadda yiri Garowe xaram waa Captain Ayub wiilka la yiraahdo islaanta ana qabay
سفي عم بشرع على الإسلام ويقول الشيخ عانا أي حري كابتن أيوب وها عرضك أرض وحكوا حقي قبلنا عن نيروبي جوكته قول لي أنا مع شوكر وبحيي أديرك داير على سوتك تعرس أي عرضك حقينا وها الماء يران وها وأولي أدو إلا بالله ويل كان فنان كان لا شر مبوي لما هادي ويل كاس مركي يقدم بيدي أد بالو حسوس تغيريدي بقول الله sababtoo nin aabba baan aabuhuna waa dareemi kartaa qalbiga ayuu ku hayaa ilmihiisa saddexdeedaas cunug iyo hooyood waan baafinaya hadda waxaan arkay inay anu waagi hore inaan helo waa ku rajo weynaa laakiin waxaan arkay inay saddex caasi adeerko daahir calasow ayay saas waxaan xaganayaan hadda aragto daahir calasow waxaan kala ballamaya ilmahaas anaa dhalay waa nibca cabdi cismaan iyo ayuub cabdi cismaan iyo شرم بوي عبد العثمان هذا كورنا واقو أركتين إنه ينسى عذانا وقارهان وقشران نسى عذانا هاي قارهان وقشران هاي قارهان نديرانا المها أنا دلي وحن كلا دردار ما يهبل قدر قارهان هوي المها متشرتين معها المها متشرتين سد أحداث لبدا ويل يقعد عسوا هبل قدر وسعد وقشر وندير وركن مرة ما نسوق بصور ظاهر على السوق المها عاسوي فصح وحولي عنانتو waxaan halkaan uga fasaxay inuu YouTube-yada ka dhaxlo waxaan halkaan uga fasaxay Facebook-ooda ka xiro waxaan halkaan uga fasaxay Messenger WhatsApp Google wax la wax isticmaalaan oo ka kasaro ilaa ay u soo laabtaan aabahooda ku nool bariga mudug gaar ahaan degmada Hoob iyo meel koonfurka galbeedka uga beegan 30 kilomitir gobol leeyahay ilmaha qofka arkaan ay soo sheegay waa maasantii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh wax kale umaanaan soo qaateen oo ninkan waxaanu ka aragnay Facebook isaga oo qabsaday sidoo kale abwaanka weyn ee daahir calasow ayaa soo dhigdhigayay sidoo kale dad badan ayaa soo dhigdhigayay sidaas ayaana ku soo qaadanay dad badan ayaana comment ka soo bixinaya iyaga oo sheegaya isla markaana calaamada emoji-ka ooyinta uu isticmaalayo oo dhahaya nimca joker iyo sharma boy maxaad uga tagteen aabihiin balse taasi anagu waxaan u badinaynaa been hadaba dadkii soo daawaday isla markaana run u maleynayay waxaanu ka shaki galeynaa barnaamijkan oo aanu leenahay been ayuu barnaamijkan u ekaan karaa oo ninkani waxa uu matalayaa odagii weynaay oo soo fadhiistay isla markaana yiri waxaan ahay Nairoos aabaheed kadibna fashilmay beentiisna ku soo gudbiyay markala social media adaba moogi in aad soo daawatay balse oday social media baryahan waxa jiray dhahayay waxaan dhalay Nairoos waana gabadhayda waana ay ugu caasiyowday sidaas ayuu dhahayay balse markii dambe ayaanu sal galaynay oo aanu dhiri war odagaani marun buu sheegaya mise been arrinkiina been ayuu noqday hadaba odagaasi ayuu koobiyeynayaa man isnirin ninkan oo hadalkiisa oo dhan waa been isla markaana been ayuu soo gudbinayaa balse adigu maxaad ka aaminsan tahay hadalkaani marun mise been ku soo qor commentiga maxaad adigu u badinaysaa maxaad adigu ninkan u aragtaa sheeganaya 60 sano inuu nimca joker iyo sharma boy isku dhalay sheegaya hadaba commentiga ayaanu ku tixgelin doonaa noogu soo qor commentiga sidoo kale channelkan qarsooni media oo wax walba oo qarsoon ku soo gudbiya subscribe saaro oo hamoogaan wax walba aanu halkaan soo galino sidoo kalena gambaleelka u furo si wax walba ay kugu soo dhacaan halkaan soo galino mahadsanidin